مشاعلا شحذت شموع العلم في وجداني لولا بعد الله عشت مكبلا ما بين قيد الجهل والحرمان شكرا لكل معلم رباني. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم وبعد إن شاء الله تعالى وحن ربا إن كورسين آخرين عشر في السدحات الدروس العربية لغير الناطقين بها إن شاء الله تعالى عن وحكني لهذا هوري وحنوصل آخرين عشر كوات كتاب كل هذا الدروس العربية لغير الناطقين بها وحن قصوا آخرين عشر كوات وحن كبرني هذا إني تهي إشارة دو عشر كلوات وحن كبرني ذلك إني تهي إشارة دير مرك إشارة وحلة تلمامة اللبان أقيبني من دو يمن دير شيء دو محلقوت تلمامة أفك عربية هذا قلم هذا بيت وهذا كتاب وهذا سلسلة وهذا مدرس وهذا مسجد هذا سلسلة الله استعمالها حدي واحد ديري إن محلها ذلك بيت ذلك كتاب ذلك مسجد ذلك مدرس ذلك إمام سلسلة الليل ذلك وحي فك أو فرفيق عرب ميل در معناها كتلمان در كبحين ربا وحي دونه وحلقوت الماما هذا سلاس دردد هذا مركا عرفت وحي تلمامه وحده وحوي مفرد وهل أو شيء كليئة أو مذكر أو لبأة أو محان دهني أو قريبة حتى ذلك دهنا ذلك محي تلمامه ذلك محي تلمامه مفرد أو وهل أو مذكر أو لبأة أو بعيدة فكذا درت ذلك وحدار كو إشار هذا وحده كتلمان ما فهمت المسألة ذلك وحدار كو إشار هذا وحده كتلمان لبدا سداد أوغاتو ناشاس waxaa ku fahantay guud ahaan ishaaraadka laba nooc kamid ah ishaaraadku marka way badan yihiin laakiin labadaas hadda noqosayso hada ya dalika su'aal si looga dhiga hada baytun su'aal ka dhig waxa leeyahay adalik hada baytun dalika baytun su'aal ka dhig adalika baytun bas hamza gali amba kale waxa leedahay ma hada oo ishaaro aan sheegi markaas la sheegin magaciis ما هذا عدلان عشر كاس مركو وحان كسو قدبنا الدرس الأول وحان كلو كسو قدبنا الدرس الثاني وحان إذن دقنا تمرينات كيسي حتى قيب كميد عنا إذن كرير شقي الدرس الثالث عشر كسدحات وحان كبرانينا وحا عيدهان معرفة ينكيرو شيء لا يقان يشيء آن لا أقونين مثلا هدان ده بيت قري واي البيت هدان ده قري واي قلم قلن واي قلن ياشا كمدا قلن او حنقو كرا قدودا كو عد كو مدو كو دير كو قابن قلن نوع قلن كمدا لكن القلم هدان دهان محونقنا قلن قوريئة سيد انجليش كأبوك يذبوك اي ودهانو يذاؤك الاستعمالان شيء بوك يبوكي اسكو هالما قوري يقوريكي اسكو هالما سيد درادة عف عربيكا قرانكا احاديثتا مركا عرفتو شيء الله wax ay al ku jirto hadaa aragto shaygaas waa isim waxa kale oo laga faa'iidaa shaygaas waa magac la isla yaqaan مثلا rasuul waa rasuul somaha ar-rasuul hadii la dhaana muxuu noqonaa rasuulki ma fahanteen ar-rasuul waa rasuul la soo sheegay oo la og yahay midka laga sheekeenay hadaan iraahdo rasuulna waa rasuul min ar-rusul rasuul rususha kamida kitaab waa kitaabada kamida al-kitaab hadaan dhaana muxuu noqonaa كتاب ليس لأوجيه كتاب القرآن كذلك الكتاب لا ريب فيه ساسو كلام مركب بارك الله فيكم مركب اسم كالله اسم كعن الله هين أفك عربية وح ألقات ومقعيدة نامسك المركب قات مركب محون قنايا هذا ألقاته شيء جاس وشيء لصار شيء أم بشيء ليس لا يقانو ولا أوجيه شيء قوي هيوا مثلا عشرك وحكا قبل مركب بيت ما جز وحكو قرن qofkii haysta buuga waa idin soo dhigay horay waxaa ku qoran baytun haddana wuxuu geliyey albaytu baytun waa guri al geli marka maxaan dhahaynaa albaytu baytun waa guri al haddaa geliso maxuu noqday
البيت هي كتاب كتاب oo laba shaqal leh af carabiga marka la qorayo laba shaqal lagu ma dhawaaqo marka oo carabi aan lagu hadlayo kitaab laakiin hadda litacliim tanwiinta aakhir ka saar waa ku dhawaaqayna kitaabun maxaan dhahaynaa kitaab buugaagtuu ka mid yahay laa nadri ma ogin buugga uu yahay buug la og yahay ka dhig maxaan dhahaynaa alkitaabu ma fahanteen kitaabun buugaagta ka mida waay laakiin buugaan isla naqaanaan ka dhigaynaa maxaan dhahaynaa markaas alkitaabu kitaabki qalamun qalinyaasha ka mida qalinaan isla naqaana ka dhig maxaa la dhahaa alqalamu qalinkii waa isla ognahay markaas waa qalinaan ognahay amba hore u isticmaala waxaan ku leeyahay qalinkii iisoo qabo alqalinkii soomaaliga waxay raaciyaan wixii iyo kii iyo tii iyo shayay tacriifinayaan waa marka maxaan leenahay qalinkii alqalamu qalinkii jamalun awr geela maxaa la dhahaa jamalun geel aljamalu haddaan dhahana muxuu noqonaya aljamalu mid laysla yaqaano masalaas ma la fahmi jamalun oo tanwiin leh oon al lahayn waxaan leenahay wuxuu noqon karaa mid walba oo ka mid a noocyada geel jinsiga oo dhan oo geelu kulminaya laakiin haddaan dhaho aljamalu jinsiga geela mid kamida waay macnaha jamalun laakiin haddaan dhaho aljamalu geeli oo geeli hebel geeli aabe iyo geeli awowo midkaa doonto dheh ugu noqonaya markaas geel lala yaqaano oo geeli yaa yimid macnaha geeli iyo geel isma leh soomaaliga xataa geel haddaan dhaho waa geeliyaasha kale geelalka kale ka mida haddaan dhaho laakiin ka waran aljamalu geelkii waaye oon isla naqiinay oo amba kii dhaxalka loo qaybinaayo amba kii zakada lagu bixinaayo amba kii hebel lahay saasaan ku wadayna masalaas ma la fahmay saas daraaddeed marka macrifo iyo nakiro carabiga waxay dhahaan midka asha lahayn waa shayaan la aqoonin oo qarsoon midka asha lehna waxaa la dhahaa waa shay laysla ogyahay oo laysla yaqaano oo dadku qofka loo sheegayo al loo isticmaalayo waa wuxuu ogyahay sidaas daraaddeed waxaan rajaynaa inaad saas u fahamtiin marka haddii alla raaciyo maxaan dhahnay sida waxay lamid tahay ingiliishka marka la yidhaahdo the book iyo the car iyo akaar misleedahay the car iyo akaar misleedahay isma leh baabuur iyo baabuurki haddaan dhaho house iyo the house misleedahay guri iyo gurigii isma leh sidaas daraaddeed qalamun waa qalin alqalamuna waa qalinkii ingiliishka meeshay da-da ugu jirto carabiga waxaa ugu jiro al dadka ayaantan ingiliishka ku waasheen marka meeshaasaan rabaa inay ku ogaadaan da-da ingiliishka ku jirto waxaa carabiga u dhigma al sidoo kale waxaan leenahay marka qalinkii aan ka sheekaynaynaa qalinaan isla ogeyn oo qalinkii hebel ah waxaan leenahay alqalamu maksuurun qalinkii waa mid jaban waxaan leenahay alqalamu maksuurun waa kaasaa qalinkii oo jaban qofkii kitaabka haysto duruus alcarabiya ligayri naadiqiina biha maxaan leenahay qalinkaas alqalamu maksuurun qalinkii waa mid jaban qalinkii waa mid jaban meeshaasna maxaan leenahay albaabu maftuuxun kana maxaan leenahay albaabu maftuuxun iriddu way furan tahay albaabu maftuuxun iriddu way furan tahay saasaan leenahay maxay albaabu markaan dhahayna marka waa iridda gurigaagi amba waa iridda gurigeygi amba waa iridda guriga hebel iriddaas albaabkaas waa albaabaan isla ognahay oon isla naqaano haddii alla geliyo haddaan alla gelinin wuxuu noqonaa albaab albaabiyada ka mid a oon la ogeyn maxaan dhahaynaa marka alwaladu jaalisun qofkii buugga haysta wuxuu buuggiisa ha fiiriyo duruus alcarabiyati ligayri naadiqiina biha addarsu athalith wuxuu leeyahay alwaladu jaalisun walmudarisu waaqifun alwaladu jaalisun wiilka wuu fadhiyaa wiilka waa wiilkee waa wiilkii inay hebel wiil la yaqaano waay haddii alla geliyo wiilka muxuu noqonayaa wiil laysla ogyahay oo laysla yaqaano oo cidda dhashay iyo guriga uu ka soo baxay la yaqaano waay alaan isticmaalaynaa markaas sida ingiliishka the th loo isticmaalaya iida aan waxaan leenahay alwaladu jaalisun walmudarisu waaqifun mudariskiina waxaan leenahay waa mid taagan alkitaabu jadiidun waalqalamu qadiimun kitaabka haysato waa duq kitaabka
kitaabkan waa duq kitaab laysla yaqaano waaye maxaan dhehnaa marka alkitaabu jadiidun waalqalamu qadiimun qalinkiina waa duq kitaabku wuu cusub yahay qalinkiina waxaan leenahay waa duq sidoo kale waxaa la dhihi karaa alximaaru sagiirun dameer yaraa aragtay damba dameer iyo farasaas barbar dhigay dameeraad taqaanid oo aad arki jirtay oo la yaqaano maxaa leedahay alximaaru dameerkii oo la yaqaanay sagiirun mid yar waa maxaan kaloo dhihi karnaa marka walxisaanu kabiirun faraskiina waa mid weyn faraski iyo dameer hadday is ag istaagaan faraskii hebel iyo dameerkii hebel haddii las ag keeno maxay noqonaya dameerkii hebelna wuu yar yahay faraskii hebelna wuu weyn yahay saasaa lagu wadaaya salaas ma la fahmi sidoo kale waxaa la mid ah alkursiyu maksuurun kursiyun waa kursi algeli alkursiyu maxaan dhahaynaa alkursiyu kursigii oo kursiga iskuolka amba kursiga mucalinka amba kursiga aabe iyo kursiga hooyo maxaan leenaha alkursiyu maksuurun mid jaban waa maxaan leenaha almindiilu wasikun waxaa jiro mindiilun haddaan dhahno mindiil soomaalida qaarkood af soomaali ahaan ay u isticmaashaa waxa sanka diifka iyo wasaqda laysaga tiraa la yidhaahda dadka qaar koonfurta istiraashaa la dhahaa dadka qaarkood mindiil sidiisa u isticmaalaan af soomaali maaha asalkii waa carabi waa kelimad carabeed almindiilu wasikun wasaqna waa af carabi laakiin af soomaaliga annaga waxaan dhahna wasaq carabiga waa khaa soomaaliga qaaf camal aan ugu dhawaaqna almindiilu wasikun mindiilki oo diifka laysaga tirtiraay amba gacmaha lagu tirtiranaay wasikun wasaq waay almaau baaridun biyaa lagu keenay waxaa lagu yidhi biyahan cab biyihii waa biyo la og yahay oo ku hor yaallo oo biyaha kasoo socmay oo galaas kugu jira maxaa leedaha marka almaau biyuhu baaridun kuwa qabow waay biyuhu way qabow yihiin ma cabi karo aniga marka biyahan ma ahan biyo qabow ma ahan oo biyayaasha ka mid a laakiin biyahan waa biyo la og yahay maxaa la dhaha marka alqamaru jamiilun bishiyaad dayxiyaad fiirinaysaa bishi markaa indhaha ku fiirisid oo habeen 15 tahay cirkana uusan caad lahayn muxuu noqonaa wax qurux badan maxaa dhahay marka alqamaru jamiilun alqamaru dayaxa waa dayaxa muuqdo ee hadda taagan cirka maxaa leedahay alqamaru jamiilun dayaxu waa mid qurux badan albeytu qariibun walmasjidu baciidun albeytu macnaa beyti gurigii wuu dhow yahay masaajidkiina wuu fog yahay guriga wuu dhow yahay qofaa wada socoteen gurigaaga aaw ku yiri gurigaygi wuu dhow yahay leeda guriga marka qofkiina wuu yaqaan guriga wuu noo dhow yahay guriga wuu dhow yahay guriga marka waa guriga hebel oo la yaqaano alaa la isticmaalaa guryaha guri dhow waxay noqonayd mogtaa beytun qariibun guri dhow guryaha ka mid laakiin albeytu haddaan dhahan muxuu noqonaa guriga waa guri la yaqaano waxaan leenaha marka albeytu qariibun waalmasjidu baciidun masjidkuna baciidun wuu fog yahay alxajaru thaqiilun waalwariqu waxaan leenahay khafiifun alxajaru kabiirun waalwariqu alxajaru thaqiilun dhagaxii wuu culus yahay dhagaxa meel yaallo waxaa lagu yidhi soo qaad markaad dhagaxii u tagtood ku rogmato qaadi maagta maxaa aragta culays maxaa dhahe marka alxajaru thaqiil dhagaxan wuu culus yahay dhagaxa waa dhagaxa gaarahood oo tijaabisay waay maxaa dhahe marka alxajaru dhagaxi thaqiilun mid culus waay walwariquna waraaqda oo buugga lagu dhigo iyo waraaqahana maxaa leenaha walwariqu khafiifun waraaqduna waa khafiif maxaa leenaha allabanu xaarun caano dabka laga soo dejiyaa lagu keeno bakeriya lagugu soo shubay waxaa lagu yidhi caanahan cab caanihii waa taabatay waxaa aragta inay kulul yihiin labanun xaarun waxay ahaa lahayn caano kulul maxaa haysaa dukaan haddaad tagto oo ku yidhaha labanun xaarun caano kulul caanaha markaas macaano geelaa lama oga macaano lo-a lama oga macaano aryaa lama oga ma qabow yihiin ma kulul yihiin waaba kuu sheegay laakiin caanihii noocooda lama oga hadda laakiin markaa maxaa leenaha allabanu caanihi xaarun kuwa kulul waay alqamiisu qamiiskana nadiifun qamiiska waa nadiif shaatiga waa nadiifsan yahay qamiis aan u naqaano iyo shaatigaba afka carabiga labadooda waxaa laysku dhahaa qamiisa laysku yidhaha ereyadaas marka maxaan ka faa'iidaysanaynaa al kelimada alif iyo laam waxaa loo isticmaalaa qur-aankana way ka buuxdaa waa aragteen waxaa loo isticmaalaa shayga laysla yaqaano amba horey loo soo sheegay oo mar labaad la sheegaayo qur-aanka dadka yaqaano way ogyihiin facasaa fircawn fa arsalnaa ilaa fircawna rasuulan fircawn waxaan u dirnay rasuul waa kuma rasuulkaas waa nabi muuse laakiin hadda lama sheegin
waxaa la yidhi waxaan u dirnay fircawn rasuulan markaasaa la yidhi facasaa fircawnu rasuula fircawn wuxuu beeniyey rasuulkii kee waaye kii lasoo sheegay ma fahamtee masalaas al haddii la geliyo shayga wuxuu kuu noqonayaa shay laysla yaqaano oo laysla og yahay oo shayaasha kale ka soocan qalamun waa qalin alqalamuna waa qalin la og yahay qalinkii hebel amba qalinkeygii amba qalin heblo waa maxaa la dhahaa alkitaabu waa kitaab laysla yaqaan kitaabun kitaabyada ka mida waa beytun guri waaye guryaha ka mida albeytuna waa gurigii waa guri laysla yaqaan masalaas ma la fahmay waxyaabahaas marka cashirkan waxaa lagu baranaya waxaa la yidhaahdo annakiratu walmacrifa shayga caanka ah oon mid gaara ku lahayn iyo shayga soocmaaya marka la isticmaalo ashu waxay samaysaa inay kuu yeesho astaan gaara iyo soocitaan gaara shaygaas shay la ogyahay ka dhigaysaa sidaas daraaddeed sidaas ha la ogaado kitaabka tamriinaadkiisiiu meeshaan ka gudagelaya wuxuu ku leeyahay iqra' waktub maca dabdi awaakhir alkalimaat aqri oo qor adigoo shaqlaaya kelimad walba aakhirkeeda waxaa la rabaa inaad kala fahamto aakhirka kelimadda maxaa la saara ma la tanwiinina ma hal shaqal maa la saara laba shaqal maa la saara inaad kala saarto haddii al la geliyo al iyo tanwiin ma kulmaan haddaan dhaho maalan masjidun al male soo maha tanwiinaan saara aakhirkiisa maalan almasjidu na maxaan dhaha hal god aan saara masjidunna maxaan dhaha laba masjid almaa-u biyo laysla yaqaano maa-un biyo almaa-u biyo oo biyihii waayo maa-unna biyo waayo oo biyayaasha ka mid a sidaas daraaddeed saasaa lagu kala soco marka waxaa lagaa rabaa markaad qorayso shaqal masjidun daalkiisa laba shaqal u yeel maalan almasjiduna hal god u yeel almaa-u hal god u yeel maa-un laba shaqal u yeel albeytu hal god u yeel baabun laba shaqal u yeel qalamun laba shaqal u yeel alqalamu alaa gashay laba shaqal ha u yeelin shay ma arkaysid qur-aanka bal fiiriya soomaalida qur-aanka ay taqaan walow ay carabiga luqad ahaan u daraasaynin qur-aanka ka raadi ma jirto shay al ku jirto oo laba shaqal leh saas daraaddeed haddii al aad timaado haddaad al geliso ha laba shaqli ma fahamtee masaladaas cashirkan intaasaa laga baranaya alkalbu ba'da hal god u yeel maadaama al gashay kalbun laba shaqal ka dhig qamiisun laba shaqal ka dhig waladun laba shaqal ka dhig alxajaru alaa gashay hal shaqal ka dhig aakhirka shaqalka saaranaan kaa rabaa bes inaad ogaato alwaladu maxaa dhehe alwaladun ma la dhihi karaa al ayadoo la geliyay tanwiin ma la saari karaa ma la dhihi karaa alwaladun ma la dhihi karaa ma socone inaa idhahda alwaladun maya al hadday gasho laba shaqal waa ka mamnuuc qodob ahaan xeer ahaan garaamar ahaan waa mamnuuc alxajaru alwaladu ximaarun salaas ma fahanteen ximaarun dameer waa dameerada ka mid a alximaaruna waa dameer laysla yaqaano oo dameerada ka dhex soocan saasaad ku wadaysaa meeshaana wuxuu ku yidhi iqra' waktub dhawaqaa lagaa rabaa inaad samayso albeytu maksuurun albeytu alaad gelisay hal shaqalaa u yeelay aakhirkiis maksuurun ra'deedana maxaa saare al maleh laba shaqalaa saare marka shayga aan al lahayn laba shaqalaa la saaraa haaliban shayga ashalana marnaba laba shaqal lama saari karo ma fahanteen shay laba shaqal diid qabo oo cudur shaqal diid qabo wou jiraa labada shaqal diidaayo dib aan uga sheegi doonaa marka almaktabu maksuurun xafiiskii oo mataqaana miis xafiiseedki wuu jaban yahay almudarisu jadiidun almudarisu ma dhihi kartaa almudarisun ma dhihi kartaa ma tanwiini kartaa ayadoo al ku jirto laba shaqal aakhirka ma la saari karaa laba god laba hoos dhig laba kordhig ma la saari karaa ayadoo al la geliyay shayga lama saari karo mana arkaysid mana dhacayso marka yaan la isku saarin alqamiisu wasikun qamiisku shaatigii waa wasakh wasikun waa la tanwiinina alqamiisun ma la dhihi karaa maya alaa gashay alif iyo laam shayga ay awalka ka galaan awalka besay galaane shaygay galaan isimka oo horey laga dejiyo alif iyo laam aakhirkiisa laba shaqal ha isku saarin yaan lagula yaabin haddaad saas samayso waxaa la dareemaa in carabigaaga uu baaba yahay salaas ma la fahme alxajaru kabiirun alxajaru kabiirun alxajaru dhagixi aan kor u qaadi maagay maanta
oo la ogaayo mar tijaabiyey inaan kor u qaado kabiirun dhagax weyn waayo kabiirun waa la laba shaqla al ma leh laakiin alxajaru ma la laba shaqli karaa maya intaasaa la rabaa inaad samayso ood shaqalka isticmaasho allabanu baaridun allabanu caanihi maxaan leenahay baaridun kuwa qabow waayo walmaau xaarun biyina kuwa kulul waayo walimaamu imaamki walimaamu hal god bisaa saare walimaamun ma dhihi karaa alimaamun ma dhihi karaa maya al haddayba gashay ha ku daalin laba shaqal ha iskula imaanin alimaamu jaalisun laba shaqal haddii laga waayana tanwiinta waa ku dayi kartaa walmudarisu waaqifun mudariskina maxaa la leeyahay waaqifun mid taagan waayo alqamaru baciidun qamarkii mid fog waayo dayxi wuu fog yahay dayaxaas muuqda oo aad tilmaamaysid waxaa leedahay alqamaru dayxi baciidun mid fog waayo almindiilu nadiifun mindiilkiina waa nadiif almindiilun ma dhihi karaa iyadoo al aada isticmaashay carabiyada shay aad al u isticmaashay aakhirkiisa laba shaqalka ilaali haddaad awalka al geliso ood meesha u horeysa al dhigto aakhirka laba shaqal ma aqbalayo al haddaad hore kasoo dhigto laba shaqal ka ilaali haysan dhicin al iyo tanwiin inaad meel isugu keento waxay noqonaysaa qada oo aada u foolxun waayahay meesha oo saddexaad tamriinaadka waa exerciseka amba layliga waay saddexaad anaa idinkaga sharaxay waxaa lagu yidhi imla ilfiraaq fima yali meesha soo socoto buuxi biwadci alkalimati almunaasiba min alkalimaati ataaliya hadalladan hoos ku qoran adoo midda u munaasaba isticmaalaya alxajaru maxaan dhahaynaa yaa soo qori karo alxajaru dhagixi maxaan dhahaynaa hore waa usoo sheegnay alxajaru dhagixi maxaan leenahay khafiifun maan dhahaynaa carabi wax lagu qor yaqaana alxajaru maxaa galayo meeshan kor waxaa kuu saaran jamiilun wasikun maftuuxun xaarun thaqiilun khafiifun kou qaadana marka xajarka khafiif mau qaadana wasakin mau qaadana xaarun mau qaadana maya thaqiilun waay haye albaabu albaabkiina albaabkii maxaa la siinaya ereyada hore haddii laga soo xulo muxuu qaadanayaa albaabu maftuuxun haye inaa qortiina lagaa rabaa shaqashiina alqamaru dayxina alqamaru hal god inaa u yeeshaa lagaa rabaa maxaan dhahaynaa marka baciidun mid fog waa ma fahamteen masaladaas amba jamiilun mid qurux badan waa alqamaru jamiilun alwariqu khafiifun waraaqdu waa khafiif maxaan leenaha marka almindiilu nadiifun amba wasikun wasaq waayo allabanu caanihina xaarun kuwa kulul waayo ma ujeeda caanihina way kulul yihiin saddexdaas layliya uu leeyahay layliga afaraad waxaa lagu yidhi imla ilfiraaq ma ka shaqaynayo qofkii rabaa kasoo shaqeeya iisoo diro idinkaan idinka xujaynaya aan arko qofkii la tafaaculay ee u diyaara oo ka shaqaynaya oo iisoo diro whatsappkayga cashirka korkiisaan soo saaraya whatsappka iisoo dhigay waa soo sawira markaa ka shaqayso imla ilfiraaqi fima yali kan soo socda meelaha banaan buuxi biwadci kalimatin munaasiba nadiifun meesha banaan maxaa galay dash maksuurun kan saddexaadna waxaa lagu yidhi baaridun maxaa hortiisa la dhigaa meesha banaan sidoo kale dash qariibun maxaa la dhigaa adigaa lagaa rabaa baciidun maxaa hortiisa la dhigaa waaqifun maxaa hortiisa la dhigaa jaalisun maxaa booska banaan lagu qoraaya kabiirun maxaa lagu qorayaa hortiisa qadiimun maxaa lagu qoraaya meesha ka horeyso jadiidun taasna idinkaa kasoo shaqeynaysiin meeshan wuxuu ku yidhi alkalimaat aljadiida cashirkan kelimadihii cusbaaya uu ku jiray alqamaru af soomaaliyan maxaa la yidhahdaa ay af soomaaliha lagu soo qoro qofkii fahmay aan aragno alqamaru maxaa la dhahaa af soomaaliyan kusoo qor commentiga maxaan leenaha marka alqamaru macnihiisa waa inaad sheegtid jadiidun maxaa la dhahaa qadiimunna maxaa la yidhaha nadiifun maxaa la dhahaa xaarun maxaa la yidhaahdaa ereyadaasaan ku barana cashirkan baaridun maxaa la dhahaa sagiirun maxaa la yidhahdaa af soomaaliyaan macnihii waa barana soo maha kabiirun maxaa la yidhahdaa maftuuxun maxaa la dhahaa maksuurun maxaa loola jeedaa waa soo sheegnay thaqiilun khafiifun jamiilun waaqifun jaalisun ereyadaas macnahooda sow lama baran ereyadaasaa ku cusbaay cashirka marka maxaan leenahay alqamaru waa dayxi
jadiiduna cusayb qadiimuna waa shay duq ah oo qadiim waaye soomaalidu dhaan waa isticmaalaan ereygaas nadiifun waa nadiif af soomaaliga sidiisa u isticmaalaan shay la dhaqay oo la qurxiyey oo la nadiifiyey waay xaarun waa kulayl baridun waa qabow kabiirun waa wax weyn soomaalidu kabiir waxay dhahdaa macalinka dugsiga qofka gacanyaraha u aho ardayda u weyn oo kaabaha ardayda waxay dhahaan kabiir meesha iskoolkaaba galaas laga dhaho kabiir marka qof weynaa loola jeedaa maftuuxun waa mid furan maksuurun waa mid jaban khafiifun waa ku fudud jamiilun waa ku quruxsan waaqifun waa ku taagan wasikun waa wasaq saqiirun waa yariis thaqiilun waa culays jaalisuna waa mid fadhiya cashirkaas marka wuu su-aalo badan yahay insha allahu tacaala ha laga soo shaqeeyo najmun algali ee ku dhawaaq muxuu noqonaa annajmu diikun algali addiiku rajulun algali alrajulu طaalibun oo tanwiin leh algali alطaalibu saasaad ku wadisaa insha allahu tacaala marka erayo meeshaan kugu sii dhigdhigay oo ku leeyahay inaad ka shaqaysid oo rabo inaad aqrisid oo rabaa ood samaysid annajmu baciidun inaad tirahdid alrajulu waaqifun meelihii banaan buuxi uu ku yiri oo meeshaan kugu siinaya marka jazaakum allahu khayran cashirkaas ha lasoo fiirfiiriyo tamriina meesha kuusii dhiman oo tamriin kale leyli kale oo ugu dambeeyo wuxuu ku yiri iqra' waktub maca dabdi awaakhir alkalimaat akhri qor adoo aakhirkana shaqlaayo kalimaadka meeshan ku qoran akhri ee shaqal meeshana wuxuu ku yiri imla ilfiraaqa fima yali meesha banaan buuxi leyliga ku xigo biwadci kalimatin munaasabatin haniyun maxaa la gelinaa ya ereyada koray kugu qorayn attaajiru haniyun mathalan assukaru xulwun ereyada oo ka koreeyo meeshan ku buuxi insha allahu tacaala cashirkaas haddaad fahamteen waa intaas leyli kaluu leeyahay cashirkan oo waxaa lagu yidhi ikhtar kalimatan min alqaa'imati ba qeybta b ka dooro kelimad oo tunaasibu lkalimata alatii fi lqaa'imati alif qeybta a ka dooro marka isku xariiq mathalan waxaa inta kugu qoran waxaa kugu qoran alطaalibu kelimadee munaasab u ah ladiidun maa la dhahaa maksuurun maa la dhahaa thaqiilun maa la dhahaa maftuuxun maa la dhahaa mariidun maa la leeyahay xaarun maa la dhahaa kelimada u munaasabkaa alطaalib xariiqin ka qaad waxaa u munaasaba mariidun alطaalib xariijin kasoo qaad buuggaaga cashirka waa kaasaa alطaalib hariijin kasoo qaad mariidun ku keen hariijinta inta kasoo qaado soo jiidkan ku keen haye maxaan dhahaynaa addukaanu dukaanki maxaan dhahaynaa marka yaa u munaasaba addukaanu maksuurun maan dhahaynaa amba dukaanki waa macanyah amba dukaanku waa kulul yahay may dukaanku waxaa u munaasaba addukaanu maftuuxun in la yidhahdo dukaanku wuu furan yahay marka ereyada u munaasaba u isticmaal isku aadi waaye cashirkaas alkalimaat aljadiida kalimaadka cusub oo ku jira marka maxay yihiin xulwun waxaa ku jiro xulwun iyo baaridun iyo ereyadaas oo aan soo marnay ereyadaas raba inuu kugu baraarujiyo insha allahu tacaala marka ereyada cusub waa xulwun iyo mariidun iyo addukaanu tawiilun faqiirun qasiirun haniyun mataqaanaa iyo atufaax ereyadaasna erey cusub waayu leeyahay cashirka ku jiro calaa ayi xaal qeybtaas hala soo akriyo jazaakum allahu khayran hana ardayga rabo inuu munaaqasho ka sameeyo wuxuu ka shaqeeyey sawiraha iga soo diro ha yidhahda aniga intaana soo qabtay sidee tahay bal fiiri ha isoo yidhaahdo masaxan tahay ma qaldan tahay buugga wuxuu ku jiraa google-ka duruus alcarabiyati ligayri naatiqiina biha a la yidhaahdaa markaan meeshan soo saaro oo aan hadda sheergareeyana waxaa arki doontiin insha allahu tacaala qoraalka ku dul qoran aad wixii tilmaanahoo dhiman meeshaad ka helaysaan waxaan kaloon rabaa inaan kusoo gabagabeeyo ogeysiis waxaan diyaarinaynay duruus culuum shariica oo mutakaamila oo ka kooban luqadda carabiga caqiidadii xadiidkii fiqigii tafsiirkii siiradii iyo wixii la midkaa insha allahu tacala inaan soo gudbino sidaas daraadeed qofka danaynayo waxaan ka codsanaynaa whatsappkayga wuxuu ku qoran yahay beijkaygu saaran yahay ila soo wadaag aan ku xiriirno insha allahu tacaala waxaana rabnaa oon rajeynaynaa inaan uga faa-iideyno ardayda
iyo dadka qolalka ku xiran iyo guud ahaan dadka daneynaya inay diinta wax ku ogaadaan kitaabada la baranayo insha allahu tacaala waa fiqigi xagga fiqiga waa matnu abi shujaac kitaab alcibaadaat xagga xadiidka waa fiqu lcibaadaadka axkaamti oo cibaadaadka soonkii salaadii zakadii xajkii iyo wixii lamidka ah cumdatul axkaamka aan ka qaadanayna qaybta qismu cibaadaadkaan ka qaadanaynaa tafsiirku waa 3 juz semesterka koowaad 4 mustawaan rabnaa mustawa walbana imtixaana lagaaga qaadaa 10 walbana su-aalaa lagu siinaa la rabo inaad aruursato marka finalka la gaarana imtixaanka su-aalahaas a aruursato ka dhex imaan doonaa insha allahu tacaala marka dib aan ka sharaxaynaa mawduucaas dadka danaynaya inay la soo xiriiri karaan insha allahu tacaala wajazakum allahu khayran bixusni mutaabacatikum meel walba joogtiin soo nabadgala wallahu subxaanahu watacaala aclam